systemka 20 milyan arki waaye ee hooyada caanaha gabdha sintigeeda daba taagan muxuu waxaan ka maarmi weynay sooma aha hooyada cunuga shuban biyoodka la tagtay isbitaalka in laga qaado sida haddaba wasiirka daraad sheegay xitaa isbitaaladii banaadir iyo waxa laga qaadayaa lacagta iyo laasreeti ee canshuurtaas faadka la xiriiro horta waxaan ka hadlaynaa waa faadka oo kaliya yaa maanta oo waxa lagu celinaa wacdi meeshii wacdi ay ka dhigeen canshuur dadaan canshuur lahayn dalka haddii canshuur la qaadi waayo waa u dhamaatay canshuur waa la qaadaa gurigan uu leeyahay guriga sharciga uu leeyahay nootaaya loogu soo sharciyeeyay gurigii dhammaan ninkii iska lahaa asoo la aadin islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku degan guriga waa la xirxiraa maalin kasta xildhibaanayaal saas ma ogtiin horta guddoonka sharafta leh xildhibaanada howlwadeennada baarlamaanka saxaafadda dhammaan waa salaamaya bismillaahi raxmaani raxiim yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin waxaan rabaa ugu horeyn doodayda inaan ku bilaabo toobigayna wuxuu ahaa ama ajandaha naloo soo diray cabashada ganacsatada kala duwan iyo wax iska weydiinta canshuurta laga cabtay walow wasiirada baarlamaanka iska soo xaadiriyay ee isqoray ee xildhibaanada si ay u difaacdaan qodobkooda iyo xildhibaanadii la rabay xukuumadda inay la xisaabtamaan qaar ka mid ah oo waayahan u dhar dhigtay difaacidda waxay bedeleen ajandaha maantoo dhan waxay ku celcelinayeen waa dhagaysanayay ahmiyadda canshuurta dooda maba aheenba ahmiyadda canshuurta iyo muhiimadda canshuur ay leedahay ee doodaynu waxay ahayd cabashada timid in wax la iska weydiiyo iyo canshuurta sharciyadeeda canshuur waa la qaadayay dekedaa lagu qaadaa kastamyadaa lagu qaadaa canshuur sharciyay noo laheed waxaan u raacaynaa midday ayagu sheegeen midda wasiirku sheegay midda difaacayaasha sheegeen oo ah canshuurta inuu ku tiirsan yahay sharcigeeda 1984 ama 1984 sharcigaasuu lahaa sharcigaasna wuxuu ahaa in laga qaadayo oo kaliya badeecadda soo degta ganacsiga jumlada ah warshadaha waxay soo saaraan iyo qaansheegadka hoteelada afartaas wixii aan ahayn ee canshuurtaas faadka la xiriiro horta waxaan ka hadlaynaa waa faadka oo kaliya yaa maanta oo waxa lagu celinaa wacdi meeshii wacdi ay ka dhigeen canshuur dadaan canshuur lahayn dalka haddii canshuur la qaadi waayo waa u dhamaatay canshuur waa la qaadaa laakiin canshuurtan waxaan ka hadlaynaa faadka la yiraahdo oo hadda la sameeyay in wax laga bedelay ma taqaanaan meesha looga bedelay guddiga maaliyadda wuxuu ku soo daray miisaaniyadii maalinta u dambeysay oo codeynta ahayd oo ay xaaraan tahay in wax lagu soo daro ilaa mooshin inay xildhibaano soo qoraan oo loo codeeyo oo loo qaybiyo oo waqti la soo haysto maahane laguma soo dari karo hoosgeliskii qaraska ahaayee lagu soo daraa waxaa ku jirtay in la yidhi adeegyada soo socdo canshuurta lagu soo kordhiyey haddii taas naftirkeeda lagu adkaysto expire waaye October waa dhacday miisaaniyad sanadeed iyo canshuur baarlamaan oo baasiyay isma dhaxgali karaan shaqana isku malaha tubin taas waa in la ogaada doodayda labaad canshuurta hadda xilligii wasiir bayla la soo rogay sida warkaan aniga ma dhihin ogaada siday difaacayaashu sheegeen sida wasiiradu sheegeen waxaa la yidhi canshuurtan dekedaa lagu qaaday waa lagu qaadaa waa 5%gaan ka hadlaaya canshuur kale kama hadlaayo dadka yaa la marin habaabinin hadhowto 5%ga dekedaa lagu qaadaa haddii already dekeda lagu qaado should be stop marka hadda waa in la joojiyaa marka maxaa yeelay ilaan haddii kale dadkay soo saareen markii horeba haddana dadkii canshuur kale loogu dari doona loogu daray oo hadda already bilaabatay which is aan sharciyo haysanin sharciyad ma hayso marka tan dekeda waa in la joojiyaa to clarify warkaana
meel looga fakada ma laha doodayda kale dadka raba in shacabka culayska la saaro waxay ku doodeen East African Community-ga hadda aan ku biirnay iyo dawladaha bariga Afrika oo dhan canshuurta waa la qaadaa rate intaas la egaa la qaadaa waxaan isbarbar dhigaynaa hooyo Soomaaliyeed ama muwaadin Soomaaliyeed oo $100 suuqa la tagay iyo mid kale oo ama Uganda ama Kenya ama muwaadin kale oo asna $100 suuqa la tagay wuxuu soo iibsatay ama soo iibsaday tusaale ahaan hooyada Soomaaliyeed qudaar baradho waxyaabo kala duwan $10 ay kala soo baxday $10 oo kala caan ay kala soo baxday $60 waxay ku dhiibtay cunugeeda jaamacadiisa school fee $20na cunug ka xanuunsan ama ayadooba xanuunsan isbitaal la tagtay hooyadaas waxaa ka go'i doonto $5 ayaa ka go'i doonto isla intaas ayaa hooyo Kenyaan ah ama Uganda ah suuq la tagtay sinti kama go'i doono sababtoo ah intaas ba canshuur lagama qaado dalkaas waxyaabahaas canshuur lagama qaado doodayda kale waxaan rabnaa lacag Soomaha waxaan codsan lahaa xildhibaanadu siday u jecel yihiin ayaga in loo dhageysto inay ii dhageystaan iyo wasiiradeyna sharafta leh ee xilliyada ajandayaasha kulul meesha yimaada hal dhageysto mudan xilligan lagu dhageysana okay waxaan rabnaa lacag Soomaha waaya waxaan ka maarmi weynay Soomaha hooyada cunuga shuban biyoodka la tagtay isbitaalka in laga qaado sida haddaba wasiirka daraad sheegay xitaa isbitaalada Banaadir iyo waxa laga qaadayaa lacagta iyo laasreeti walow xildhibaan meeshan soo istaago oo yiri wax kasta waa free macal iskoolada Soomaaliya oo dhan waa free oo yiri jalbada meeshay la gashay soo u jalbooday darteed macna waa xildhibaanada qaar jalbada ha joojiyeen Ilaahay ha ka baqay waxaan rabaa hooyadaas laga maarmi way Soomaha okay hadiiba lacagtaas la qaada oo lacag loo baahan yahay lacagtan $70,000 ka badan bardhay ee qaadka ka soo xaroota maxaa bangiga loogu shubi waayay sanadkii waa 20 milyan abafwa maxaa bangiga loogu shubi waayay tan kale madaxweynahayna sharafta leh wuxuu yiri system aamin ah jiro laakiin qof aamin ma jiro okay systemka 20 milyan arki waaye ee hooyada caanaha gabdha sintigeeda daba taagan muxuu yahay systemka 20 milyan abaf arki waaye ee lagu shubi waayay muxuu single tree siriga ku dhici waayay lacagtiisa aan isweydi qaadkina nagama joojin lacag canshuurna nagama soo gasho haddii hooyooyinkii waa qaylinayeen saak haddii xitaa nagala joojin lahaa waxbay ahaaleen ayaga yaa taagan hadda ha nagala joojiyo waa ka gudbaya idinkuma dheerayna waxaan rabaa oo doodaydu kala tahay canshuurta guryaha laga qaado okay canshuurta guryaha laga qaado guriga ninka iska leh guri dhan uu leeyahay guriga sharciga uu leeyahay nootaaya loogu soo sharciyeeyay gurigii dhammaan ninkii iska lahaa asoo la aadin islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku degan guriga waa la xirxiraa maalin kasta xildhibaanayaal saas ma ogtiin horta masaakiinta guryaha loogu tagaa waa la soo xiraa ilaa lacagta la dhiibana lama sii daayo war maxaa miskiinka loo xirayaa systema maalin kasta la sheegahay muxuu yahay systemka kala badbaadi waaye kireystaha iyo milkiilaha ma milkiilaha la waco ma milkiilaha xogtiisa la raadiyo sidee miskiinkan loo soo xirayaa waa dhibaato haysato shacabka inaan u doodnana xaq loo leeyahay haddaadan war u haynin xaafadaha soo wareysta waxaa soo korortay canshuurtan waxay dhashay idin sheegaya waxay dhashay faadka canshuurta faadka ahaan ka hadlaaya dadka raba inay warka isku qaldaan canshuur oo dhan ay soo qabanayaan annaga faadka leeba ka hadlaynaa saaxiibayaalo canshuurta faadka waxay dhashay dadka in lagu kordhiyo badeecadii maalin dhaweeto wiil oo aad u murugaysana wuxuu ugu yiri haaf bariis $1 ku cuni jiray $1 iyo bara laygu kordhiyo $1 iyo bara leeyiri waxaan iriyo yiri 5 senti waaba idin ogolahay $0.5 xagee u wadaan oo ii saarteen waa lagu kordhiyay la socda kullayna igama dhagay yiridin soo jeedinayga marka maxay tahay waxaan ku soo khatimayaa soo jeedinta koow canshuurta faadka
oo soo korortay oo aan ahayn afartii hore ee xeer baarlamaan maray oo dekreeto madaxweyne lagu soo saaray 84 aan ahayn ee soo korortay sharci looma haysto saas darteed baarlamaanka waa inuu amar la siiyaa xukuumadda ha soo diyaariso canshuurtaas si ay u sharciyowdo ayadoo xalaal ah oo baarlamaanka martay ha laga qaado dadka hadhowti idhaha ninkaan nin fiican ma aha waxba u mucaaradaya maxaa diidanahayba sharci ha marta ma isku diidana okay qodobkayga kale aan soo jeedinaya waxa waa baabuurta waxay ka cabanayaan gaadiidleyda lacaga la dul saaray maalin kastana laga qaado hadday gobolada aadayaan iyo markay dekada ka soo baxayaan ilaa bakaaraha mar labaadeena hadleen waa ogtihiin waa la xalliyey markii la yidhi kadib ay hadleen arrintaas waa in laga joojiya siinka dheer dekad kuma taalo canshuurta lagu qaado waa